الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waraalayaal waxaan kusoo jirnay fadaaishii bishii ramadaan iyo waxyaalaha khaaska ee la tahay bisha ramadaan. fadaaisheeda sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaalaha khaaska la tahay in bisha ramadaan habeenka ugu horeyso albaabaha maaragtay jannada la furaayo ayadoo lasoo dhaweynayo raxmadaas iyo bisha ramadaan oo karaamada iyo barakada leh. albaabihii naartana maaragtay la xiraayo, shayaadiintana maaragtay oo kuwada waaweyn oo madax adag in maaragtay ayagana la silsiladaynayo ayadoo markaasi loo diyaargaroobayo bishaas barakada badan oo weyn ayadoo markaasi loo diyaargaroobayo. nabiga sal alla alay slam xadiidkaas ayaa ka sugnaaday macnihiisa aan sheegnay. kabacdia wuxuu yidhi wayunaadii munaadin, mid dhawaaqa ayaa dhawaaqaya uu leeyahay yaa baaqiya alkhayri aqbil wayaa baaqiya ashari aqsir walilaahi cutaqaau min annaar wadalika kula leyla. qofka khayrka dalbayow soo aqaabil, waqtigii khayrka waa la joogaa oo laga faa'iidaysanayay oo naarta dadka laga xuraynayo oo dadka dembigooda la dhaafayay oo wax kastoo fadli iyo raxmad iyo naxariis ay shubmaayaan waa la joogaa. wayaa baaqiya shari aqsir, qofka maaragtay khayrka sharta dalbayow oo xumaanta ku dhex jirayow bil xumaan iyo macsi la sameeya lama joogee ka gaabso, jooji, halkaas ku gaabi oo waqtiga toobad keeni lahayd ood allah subxaanahu watacaala u dhowaan lahayd ayaa la joogaaye halkaas ku gaabay. sidaasuu maaragtay ayaa munaadi malaa'igtaas dhawaaqayso ayay maaragtay ayay leeyihiin. nabiga sal allahu alay slam waxaa ka sugnaatay sidoo kale wuxuu yidhi walilaahi cutaqaau min annaar wadalika kula leyla. habeen kaste alla subxaanahu watacaala ayaa ka xureynaya addoomihiisa naarta oo ramadaanka ka mid a. marka khaas kuma aha sidii xadiis daciif ah jiro oo soo arooray oo culammada bax badan oo kamid ay ku wacdiyaan ay leeyihin shahrun awaluhu raxma wa aakhiruhu wawsaduhu maqfira wa aakhiruhu cidqu min annaar. marka xadiidkaas culammada way daciifiyeen sababtu maxay tahay bishaan kulligeed raxmadu, bishaan kulligeed waa maqfira, bishaan kulligeed waa cidqu min annaar. waxaana daliilu ah xadiidkii saxiixa ahaa oo hadda aan soo sheegnay taraawiixda markaan ka hadlayna uu yidhi nabiga sal allahu alay wasalam man qaama ramadaana iimaana waxtisaaba gufira lahu maa taqadama min denbihi. taasaa daliilku ah. habeen kasta marka taraawiixda la dukadaa dembigiisa waa la dhaafaya, raxmad uu yahayo habeen kastana raxmadu way soo degaysaa. habeen kastana mataqaana alla subxaanahu watacaala addoomihiisa ka xureynaa naarta, khaasatan markii habeenka leylatu qadarka la gaarana xureyn qooni ayuu alla subxaanahu watacaala addoomihiisa naarta ka xureynaya. habeenka ugu dambeysana sida xadiis saxiixa kusoo aroortay ayadana addoomihiisa waa ka xureynaya. marka ducada waa in la badiyaa allaahuma actiq riqaabana min annaar, allaahuma actiq riqaabana min annaar. ducadaas la badiyo iyo ducadii nabiga sal lla ly slam ka sugnaatay allaahuma inaka cafuwun tuxibu lcafwa facfu cana. sidoo kale nabiga sal allahu alay wasalam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi lilaahi fiihi leylatun khayru min alfi shahr. alla wuxuu ku leeyahay bishaan ramadaan dhexdeeda habeen ka fadli badan ka khayr badan kun habeen. marka kun habeen cibaadadeeda waxay noqonaysaa 84 bilood iyo bilo ay noqonaysaa. halkaas habeen qofkii ilaahay oo waafajiyo dadaalkeeda iyo mataqaanaa la yimaada iyo muwaafaqada allah subxaanahu watacaala wuxuu la mid yahay qof maaragtay cibaadaystay 84 sano. sida qofka hal salaad ku dukaday masjidul xaraam ay la mid tahay 100,000 oo salaadood oo masaajida kale lagu dukaday sida ay tahay. marka amaakinta noocaasi in lagu dadaalo cibaadada sharaful makaani wazamaan wa sharafu zamaan. dadka jooga mataqaana xarameynka oo jooga way ka fadli badan yihiin, waynka cibaadadooda way ka fadli badan tahay dadka meelaha kale jooga. sidaas darteed marka waa in habeenkaasi ayadana si gooni ah loo dadaalo. sidoo kale nabiga sal allahu alay wasalam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi man qaama leylat alqadri iimaana waxtisaaba gufira lahu maa taqadama min denbi. habeenkaas qofkii markaa leylatulqadarka waxay kamid tahay waxyaalaha khaaska ku ah, waana habeenkaas aadka u fadliga badan oo maaragtay alla subxaanahu watacaala addoomihiisa dembiyadooda u dhaafaya. ruux kastoo muslima maaragtay waxaa laasim ku ah inuu dadaalo oo toobada uu ku dadaalo bishaan oo dembiyadiisii dhan oo alla uu toobad keeno, mideeda yar mideeda weyn. waxaa dhici karta alla subxaanahu watacaala dunuubtaada inuu dhaafo, inuu alla toobad aqbalo. maaragtay in macaasidii iyo dunuubtii in maaragtay laga fogaado
wixii dhacayna laga shallaayo laga laabto maxaa yeelay qofkii toobad keeni waaya bisha goormuu toobad keenaya qofkii dembigiisa allah subxaana wa tacaala bishaan dhaafi waayo goormuu toobad keenaya goormuu dembigiisa la dhaafaya marka waxaa la rabaa in maaragtay dembigiisa la iska dahiro sababtu maxay tahay jibriil calayhi salaatu wasalaam malaku jibriil oo amiinu waxyi maaragtay afdalu malaa'ika ayaa soo degay markaasuu nabiga sala allahu alay wasalam mimbarka saaran ayuu jibriil duceeyey asxaabta marka ma maqlaayaan ducada jibriil laakiin waxay maqlaayaan ducada nabi maxamed sala allahu aleyh waali wasalam amiinu waxyihi fii ardihi moxamed ibnu cabdillaahi sala allahu alayh waali wasalam afdalu lbariyati adduunka dhan khalqiga dhan midka ugu fadliga badnaa asigoo mimbarka taagan wuxuu yidhi aamiin aamiin markaasay asxaabta rasuulka weydiiyeen waxay yidhaahdeen rasuulka ilaahayow adigoo mimbarka ayaad fuushay waxaa tiri aamiin aamiin ayaa tiri maxaa dhacay kabacdi wuxuu yidhi jibriil ayaa ii yimid kabacdi wuxuu yidhi qofkii bil ramadaan soo gaarto oo dembigiisa lagu dhaafin asigoo mataqaanaa soon hilmaan ama sooma ah oo mataqaanaa halmaansan macaasidiisa iyo dunuubtiisa iskaga dhex jira kaas naarta allah ku fogeeya aamiin dheh anin aamiin iyaan dhaw midka labaad wuxuu yahay qof agtaada lagu xusay oo nabi maxamed sal alla alay slm magaciisa lagu sheegay oo aanan kugu sallinin marka meesha ka qaatana culamada qaarkood salliga nabiga sal alla alay slm magaciisa marka la sheega waajib inay tahay xadiidkan ayaa ka mid a marka aayaddiina salluu caleyhi wasallimu tasliima ay leedahay nabiga sal lla alay slm salaada lagu sallinayo waajib ayay tahay qowlkaasaana xoog badan marka salliga nabiga sal allahu alay wasalam qofkii lagu salliyay agtiisa magaciisa lagu sheegon kugu sallinin maaragtay naarta allah ku fogeeyo waxaa tirahdaa aamiin aamiin ayaan ka daba dhahayo midda saddexaad waxay tahay qof waalidkiisoo gaboobay duqoobay soo gaaray ama mid ka mid ama labadooda oo aan dembi dhaaf ku helin baarinimada uu baarinimo sameeyey oo naar gala caaswaalidaynimo liadligeed oo naarta gala allah ku fogeeyey naarta aamiin dheh anigana aamiin ayaan dhaho yiri nabiga sal alla alay wasalam waxaa iska daba aaminsaday yay yihiin waa labadii maaragtay qofood oo ugu fadliga badnaa taqaana koonka nabi maxamed sal allahu alay wasalam oo khalqiga dhanka ugu fadli badan maca jibriil xitaa asaa ka fadli badan nabiga sal allahu alay wasalam qof bini aadam ka fadli badan adduunyada ilaahay ma abuurin waxa kale mataqaana way ka darajo hooseeyaan malaa'igta ninka uga fadliga badnaa oo waxyiga allah subxaanahu wa tacaala uu waxyoonayay ambiyada laga soo bilaabo nabi nuux ilaa nabi maxamed sal allahu alay wasalam waxyiga uu keenayay jibriil calayhi salaatu wasalaam oo afdalo malaa'ika ah ayaa kadaba aaminsaday marka ducadooda laa shaka waxaa ah inay maqbuul tahay oo mustajaaba ay tahay ayaa mataqaana maaragtay ayay tahay marka in soonkaas lagu baraarugo fadligiis lagu baraarugo qaflada laga baxo allah subxaanahu wa tacaala loogu toobad keeno dunuubta iyo mataqaana macaasida loogu toobad keeno layska ilaaliyo waxyaalaha lagu mashquulay sida dadka qaarkood oo biryahan dambe qaar ay ku mashquuleen waxyaalaha mukhaadaraadka iyo xashiishka iyo qaadka iyo sigaarka iyo waxyaalaha lamidka ay dunuubtaas ay mataqaana samaynayaan allah ugu toobad keenaan dadka sidoo kale ku mashquulay waxyaalaha la yiraahdo waxyaalaha social mediaha la yiray beryahan khaasatan gabdhaha iyo wiilasha dhalinyarada ah oo mar kaste wax xun iyo wax lala yaabo soo gelinayo ayagoo qaawan ayagoo is haysta ayagoo sida dadka qaarkood noo sheegeen wax lala yaaba mataqaana ay soo gelinayo kufaanayaan ogaada mataqaana allah subxaanahu wa tacaala inuu idin arkaayo allana idima hilmaansana alla wuxuu leeyahay walaa taxsabana allaha gaafilan camaa yacmalu daalimuun marka alla subxaanahu wa tacaala ha u malaynina inuu hilmaansan yahay dadka daalimiinta ah dulmiga mataqaanaa naftaa dulmiga qofkii nafsidiisa dulmiya waa daalim qofkii bini aadamka dulmiya waa daalim qofkii mataqaana maaragtay jiiraankiisa iyo maaragtay waalidkiisa iyo wax kastaba oo waa daalim marka dadka naftooda dulmiya oo dalmiga samaynayo alla ma ahaanin mid mataqaana halmaansan alla aan ka baqna subxaanahu wa tacaala fii sirina wa calaaniyatina sirtayna calaaniyadayna maxaa yeele allah subxaanahu wa tacaala allahu yaclamu sira wa akhfa alla subxaanahu wa tacala wax qarsoon iyo waxa muuqda kulli alla subxaanahu wa tacala uu ogyahay marka alla subxaanahu wa tacala toobadkeeno waxaan kusoo gabagabaynaya aayaddii allah subxana wa tacala uu leeyahay watuubuu ila allahi jamiica ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين